أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. آياتها قرآن كاهو إنو أخرينا إن شاء الله إننا الله إنكو أنفعو وحان كسور دوينا يا إن شاء الله الشيخ عبد الرشيد محمد أو فارح إنو أرندونا كلمة وعدها إن شاء الله فليتفضل الشيخ عبد الرشيد. صلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إلهي بام هذا السكله ضمانتد سبحانه وتعالى إن غير لي تد إسلامه إنه كل مي قوت بركيسن وكم ذا جريه سأه وحكرر رنتي آدم هذسن deegaanka magaalada Laabaas bulshada ku dhaqan qaybaheeda kala gedisan oo runtii iyadu martiqaadka xafladda tan quruxda badan oo kitaabka Ilaahay lagu maamuusayo iyadu goosha u dhigtay aad bay u mahadsan yihiin culimadeeda macallimiinteeda quraanka odayaasheeda hablaha dhalinyarada maaragtay sawirka quruxda badan ku sugan ee quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala xifdiyaya aad baad u wada mahadsantihiin jazaakumullahu khayran sida deeqsinimada iyo maaragtay gobonimadu ay ku dheehan tahay ee aad kitaabka Ilaahay u maamuusasaan iyo cidda xambaarsan arintaan runtii aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin markaan inta ka soo dago xafladatan ama fadhigan aynu fadhino waa fadhi Ilaahay agtiisa aad uga qiimo badan weey Ilaahay agtiisa marka la eego waa fadhi uu isaw sheegay inuu kamid yahay fadhiyada uu raalida ka yahay wuxuu Ilaahay tilmaamay quraanka golayaasha ay dadku isugu yimaadaan inaysan faa'iido lahayn saddex gole mooyaane saddex gole ayaa faa'iido leh oo Ilaahay agtiisa raali looga yahay saddexda golo
ومد وناق ليسو شيغيو أو معروف سما ليسكو فريو مدنا وحوي مال صدقات iyo wanaag maaragtay dadka masaakiinta in la caawiyo la isku farayo midna waa meel musaalaxa oo dadka musaalaxa lagu muujinayo golaha kan marka isagu wuxuu yahay waa macruuf waa golo wanaagsan oo Ilaahay kitaabkiisa meel lagu hayo maxaa ka wanaagsan maba jirtaba xafladdu sida la sheegay waxay daaran tahay ardaydii quraanka ku soo guuleysatay tartankii magaalada Orboges ka qabsoomay maalmihii la soo dhaafay inaynu runtii maamuusno oo ardayda aynu ku dhiiri gelino oo aynu ka farxino sidaas ay runtii xafladdu daaranayd Ilaahay quraanka wuxuu ku sheegay markuu ka hadlayay kitaabka quraanka qiimaha uu leeyahay laqad anzalna ilaykum kitaban fiihi dhikrukum afala ta'qilun waxaanu idin soo dejinay kitaabka waxaa ku jirta sharaftiina kitaabka quraanka waxaa ku jirta oo ku sugan sharaftiina adduun iyo aakhiraba oo taa macnaheedu uu yahay qof allaale qofkii quraanka u dhawaada oo xidhiir la yeesha ama barta ama dadka baraya ama ku amal falaya ama dayactiraya ama dhiirigelin u sameynaya ama maaragtay mancaamadaha iyo meelaha uu ka quraanku laga dhigayo ka dhiirigelinaya qof kasta oo quraanka Ilaahay ku dhawaada ama gacan ka geysta sidoo u taabageli lahaa quraanku qofkaas sharaf buu yeelanaya waa qof sharfan meel kale wuxuu nabigu ku sheegay kaleey salaatu wassalaam kitaabka quraanka dadka qaarna Ilaahay korbu ugu qaadayo sharaf iyo maamuus buu ku siiya qaarna hoos buu ugu dhigaa oo bulshada maantu waxay ku kala qiimo badan tahay oo dadka qaarna ay qiimo u leeyihiin oo muslimiin ah qaarna ay u qiimo beeleen oo adduunka ay u halaabeen waa kitaabka Ilaahay baa kala saaray midna kitaabka kor u qaaday oo waa dadka muslimiinta ayo inagu aynu kamidnahay way kuwana quraankii baa hoos u dhigayo markay dastuurkii Ilaahay ay dhagu jalaqsiin waayeen oo isku maamul waayeen oo iyagu waxyaalo ay qorqorteen iyo qaanuun ay dejisteen bay iyaguna dhulka galeen marka walaalayaal waxaan dhiiri gelinayaa kitaabka quraanka aynu u soo wada jeensano inagoo dhan aynu u soo wada jeensano hadda markaad eegto dadka ciyaalka baynu quraanka kula dadaalnaa oo waalidku wuxuu oranayaa ilmaha warad malcaamada aad warad quraanka baro war masaajidka orad fariiso quraanka qayb war kitaabka qaado isaguna waxa laga yaabaa inuu iska badaayo oo uba soconba waa sax ilmaha quraanka in la baro waa sax weey laakiin waxa fiicnaan lahayd inuu ilmuhu adiga kaaga daydo adigoo waalidka adigoo aabba ah adigoo hooyo ah adigoo eeda adigoo awoowa inuu ilmuhu ka arko adigoo quraankii taageeray oo quraankii baranay oo kitaabka la soo kala baxay oo buuga qaadanay oo macallinka u tagay sidaas fiicnaan lahayd laakiin hadii ilmihii uu lagu cadaadiyo lagu baaciyo wuxuu iska moodayaa isaguna qormadna quraanka inta ciyaalka tahay baaba laga rabaa bari ka maala adiguna markaad aabban noqoto tii iska badaada sidaas ilmihii ka dhaadhacaysa ma ogtahay ilaa wixii uu arkay marka kelmadeena waxa weeye quraanka dhammaan aynu wada baran qof kastaaba waa inuu quraanka u soo jeestaa asxaabtii rasuulka kaleey salaatu wassalaam markii rasuulka la soo saaray oo kitaabka lagu soo dejiyay wax walba way lahaayeen wax walbaale bulshada wax walbaalaha bay ahaayeen qaar isaga waa ka waaweynaayeen qaar waa ka yaryaraayeen qaar way laaleekaayeen dumar bay lahaayeen rag bay lahaayeen meelaha qaar kood waxa jirtay wiil iyo aabihii iyo awowgii ayaa wax wada baranay oo rasuulka wax ka wada baranay Abu Bakar waa saxaabi wiilkiisuna waa saxaabi aabihiina wuu noolaayo Abu Quhafa saddexdaan oo isdhalay baa quraanka wada baranayo nabiga rasuulka kaleey salaatu wasalaam quraanka ka baranay taasi waxay inoo sheegaysaa quraanku da'male macnaha marka magaalo kasta hiba waxay qiimo ku leedahay oo gobolada kale
iyo magaalooyinka kaleba ay kaga saraynaysaa waa quraanka weey marka anigoo dheereeyay waxaan aad u hambaliyeenayaa magaalada tan Laabas aad baan u hambaliyeenayaa waxaan ugu hambaliyeenayaa sanadkii hore tartanku wuxuu ka dhacay Taleex kaalinta koowaad baa qaadateen sanadkana Orboges kaalinta koowaad baa qaadateen tartankaasi wuxuu ahaa tartan aad u baaxad weyn oo deegaamada nugaasha intooda badan maxaa la yiri 30 magaalo ka soo qayb galay Soomaa ahayn 30 magaalo baa tartanka ka soo qayb galay shirka diiniga kaalinta koowaad baa sanadkii labaad qaadatay arinta Allah idin barakeeyo horta ilaahay miisaanka xasanaadka idin ku saaro runtii aad baan ugu farxay magaalada inta leego quraankii meel iska marisay magaalooyin oo magaalooyin 50 sano iyo 100 sano dhisnaa yaa gaashaanka u daruurtay waa farxad aad iyo aad u weyn dadku ay wada faraxsan yihiin qof walba marka uu sheegto aad buu ugu farxaya ilaaba hadda ma aragtay shala markii la kaftamay lalaha waa Allah haydaan tuulada ma anaga hanu soo celinaba tuulada ma anaga yaa nala tansiina goboladii iyo caasimadaha waaweyn hadda wixii laga bilaabo goobasho iimaanana waa han fiican weey arintaas arin aad iyo aad fiican weey waana dhiiri gelinayaayo ardayga halkan quraanka ka dhameeya Laabas waa inuu Hargeysa iyo Garowe iyo la sacaanood waa inuu iska xaadiriya si uu maaragtay quraanka u galinay inta uu bal akhriya arintaas aad baa ugu suntantiin ku faraadayga shukrina qanaha la badiyo waxaan hadeerna ku xijin doonaa insha Allah Sheikh Daahir Khalif oo inoo ka warrami doona insha Allah waxqabadkii iyo dacwadii ay wadeen malcaamadaha Al-Nuur iyo muxsiniinta arinta ka shaqeysa insha Allah waxaan ku soo dhaweynaynaa sheekha oo in yar oo faahfaahin iyo tusaale insha Allah ina ka siin doona falyatafadal Sheikh Daahir Al-Nuur waxa weeye waa urur khayri ah oo deegaamada tan ka soo jeeda isuna bahaystay daryeelka iyo caawinta wixii ay karaan cidda tabaalaysan iyo kor u qaadista madaarista quraanka ee deegaamada tan ay magaalada tani ay ka mid tahay wuxuu asaasan yahay afar madrasadood ayay macallimiintooda mushaharkooda bil kasta si toos ah ay u bixiyaan tiraba dadyowga ama xanuunsan ama duruufaysan oo caawiyeen kulli intaan ka warqabo ilaa 22 jeer waa ay gaadhaysaa wax badan oo qarsoon oo kale Ilaahay la og yahayna waa ay jiraan waan u ducaynaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan uga baryaynaa inuu u barakeeyo waxqabadkoodaas sadaqaadkaas iyo khayrka ay la baxeen Ilaahay subxaanahu wa ta'ala maalinay maanta uga baahi badan yihiin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka abaal mariyo midhahoodiina way haystaano maanta madaaristii deegaamada tii ayagu gacanta ku hayeen ayaa mid ka mid ah madaaristii ay hayeen baa kaalinta koowaad quraankii gashay waa wax lagu farxo insha Allah ta'ala maadaama hadalku badan yahay kullay intaas baan iskaga koobaya wixii aan ka tagay dhaxtaalka Cabdi Casiis baa ku dari doona wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh iyo dhalinyarada aynu dhiiri gelinayno oo ku soo guuleysatay musaabaqadii arbogayseed halkii ay ka soo bilaabantay ayuu in warbixinina ka siiyay khayr Allah siiyo ururka Al-Nuur hadda kow iyo laba wax la oran kara maaha 4 sano jiray waxyaalihii uu qabtay muhiimadda ugu weyn waxay ahayd in malcaamadaha madaarista awoodda la saaro in diinta Ilaahay la baro dadka deegaanadan jooga oo aan malcaamadahu u furnayn oo aan macallimiin haysan ujeedada ugu weyn iyo culayska ugu weyn oo Al-Nuur ay ka shaqeynaysa waxay ahayd in madaaristaas ay socdaan insha Allah markii labaad
oo alnuur ay u tartanto ardayda reer alnuur quraanka ayaa maanta markii labaada insha Allah waxaan mahad ballaaran halka uga celinayaa marka ugu horeeya muxsaniinta reer alnuur oo malcaamadaha ka shaqaysa oo maalkooda ku bixisa ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka ugu daro oo adduun iyo aakhiraba barakeeyo waxaan leenahay dadaalkiinni ma khasaarin oo midhihiisi waynaga maanta wax xafladaynayna insha Allah inta anigoo ku dhaafaya waxaan ku soo dhaweyn doonaa insha Allah Sheikh Maxamuud Kayse Yaasiin gudoomiyaha dacwada markaska Nugaal oo kelmadiisa insha Allah aan ku soo dhaweyn doono oo ahna gudidii masaabaqada Arbogays soo dhawow Sheikh Maxamuud بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه الله سبحانه وتعالى بأمرك وجوه الرئيس إنه مهدينا مهد الله سبحانه وتعالى كذب آد مهد فربضن أو بلارن وحينو سينينا إن شاء الله وندعينا reer laabaas dhammaan inaan kala qaadqaadayn culimadooda iyo dhammaan odayaasha rag iyo dumar inagaan kala qaadqaadayn intaa kadib runtii mahad celin gaara waxaa mudan oo xaq u leh jamciyadda alnuur oo khayrka kan iyo madaarista la tirinayay juhdi badan ku soo bixiyay runtii midhahoodiina arkay oo maanta farxad midhahoodiisa u arko la jooga haddaan xog yar oo kooban idinka siiyo markiska Nugaal waxa laga yaabaa dadka qaar inay iska cusub tahayba oo de aadan xogtiisa loo hayn markiska Nugaal wuxuu ka mid yahay maraakista gobolka Sool ee dacwada iyo diinta ka shaqeeya ayuu ka mid yahay sida markiska Boohoodlo kale Boocamo oo kale maraakista noocaas ayuu la siman yahay baaxadiisa iyo inta uu ka shaqeeyo waa inta u dhaxaysa magaalada yaraado Xalin iyo magaalada Jiidali inta u dhaxaysa ayuu ka shaqeeyaa sanad kastana intii hore uu ahaan jiray uu ka tadawuro korb uga sikaca waa ka sii bataa sanadka dhowr iyo 3 magaalo ayaa ka soo qayb galay laakiin imtixaanka waxa galay quraanka 18 magaalo oo isku jira degmooyin iyo tuulooyin runtii de markiis hore u socon jiray weeye sanad kasta waa la soo diyaar garoobaa 12 bilood baa la soo diyaar garoobaa waqtiga bacda Ramadaan baa imtixaanka la qabtaa waa dareemi kartaan magaalooyin waaweyn oo muddo dheer imtixaanka soo galay baa ku jiray magaaladiinan Laabaas iyo kuwa kale ee alnuur ka tirsan dhamaantood waxa ugu horeysay inay ka qayb galaan sanadkii hore oo ka dhacay magaalada Taleex markiiskuna waqtigu shaqeynayay ama hawsha uu waday waxay ahayd muddo 12 sano oo sanadkan kulanka la isku yimi wuxuu ahaa kii 12aad buu ahaa saadarteed alxamdulillah kulli marka la tartamo magaalooyin isku yimaadaan deecudun baa badisa hadbana cidii soo dadaasho dadaalku xageeda u soo batay baa badisa sanadkii hore Taleex markii la joogay magaalada Laabaas ugu horeysay marka imtixaanka inay soo gasho oo mustawa 3 jisa keentay ayaa markii la qiimeeyay kaalinta koowaad gashay sidoo kale sanadka iyada oo runtii dadaalkeeda waxyaalaha tusinaya ay kamid tahay sanadkii hore 3 jis qura ka qayb gashay sanadkan kor waxa uu soo kacday 5 jis iyo 10 jis baa ku soo biiray ka bacdi imtixaanka markii la galay qiimeyntii guud iyada kaalintii koowaad mar labaad qaadatay marka Allah subhanahu wa ta'ala waa inuu ducaa Allah subhanahu barakeeyaan leenahay iyada iyo wadaadada jooga iyo macallimiinta iyo odayaasha iyo waxaba Allah subhanahu wa ta'ala barakeeyo runtii hadaan laga wada shaqeyn oo jamciyadda alnuur hadaan tuulooyinku la shaqeyn waxa ma ay qaban karteen macallinka magaalada joogana hadaan dadka shacabka garab taagin waxa muu qaban kareen laakiin waxa meesha ka muuqata iskaalmaysi gacmaha la isqabsaday ayaa meesha ka muuqata إن شاء الله تعالى مركز دور قضبة كوان بهربان وربحين تا أنت على مركز إذن سيو دور قضبة كوان بعد أورانيا هرت مركز كواد
markaanu 18 magaalo imtixaan galay aanu qiimaynay waxa ugu sareeyay 4 magaalo ee idaarada iyo maamulka iyo dad gacanta ku haya lahaaba ugu kormaray haddii aan magaalada macallin la iska geeyo oo idaaro iyo maamul uusan jirin midho badan lama helo inta badan 4 magaalo maamulka iyo idaarada lahayd baa ugu sareeyay magaalada koowaad waxa magaalada joogna Laabaas bay ahayd magaalada labaadna waxa Damala Xagaray ahayd ta saddexaadna waxa Taleex ta afraadna waxa ahayd magaalada Lafweyn la yiraahdo 4 magaalaba sanadka kan waxa gacanta ku hayo aanu ogeyn oo maamulayay mid kasta group isku xiran ayaa idaarada iyo maamulka u hayay arrinkaas wuxuu daliil ku yahay iskaashiga iyo gacmo isqabsiga iyo marka idaaro iyo maamul la leeyahay magaalada noocaalihi way ka hormaraysaa magaalooyinka kale ee macallinka la iska geeyay way ka hormaraysaa qodobka marka in aad loo sii giijiyo oo jamciyadda Al-Nuur iyo tuulooyinka la magacaabay dhamaantood inay aad u sii giijiyaan horta waan ku baraarujinaya dhamaan insha Allah ta'ala magaalooyinka kale arki doono codkayga tuulooyinka iyo degmooyinkana in nidaamka noocaas la sameeyo isku xidhka kaana oo Al-Nuur iyo kuwa kale kasmaale ka shaqeeya Lafweynayo lagu daydo qodobkaana aad baan u sii boorinaya qodobka saddexaad runtii magaaladan maadaama laba sano isku xigay kaalinta koowaad qaadeen carabka la idinku haya carabka aad la idinku haya markii shay la kala anbabaxayay dad badan oo ducaadii kamid ah waxay dhaheen anagu waxaanu soo arkanay magaalada Laabaas macquul ba ma aha ina magaalada bal soo aragno xaaladeeda waayo magaalada Laabaas xagga taariikhda iyo quraankeedu waa wax aad u kala fog macnaha saxaabada intay soo gashay dacwada intay soo gashay tartamada ka soo qayb gashay dadkeeda la arkay iyo inta baaxad inta laga dadaalka ay jirtay waa wax aad iyo aad u kala weyn ragii la socday qaar xoogaa islaha mala magaalada waqti qaar waxay dheen war magaalada yar hala ku taalaba khatar tahay marka si kasta xaaladaha noqotee waxa weeye magaalada tan waxa laga doonayaa shugrunaq aad iyo aad u fara badan iyo inay dhigaan oo is oran harmaha meesha ma jiraan dadlooyga haddii odayaasha magaalada macquulka shalay waxay nagu dhaheen ma jir sida la sheegay ma jirto anagu tartanka anagu Hargeysa iyo Garowe iyo Laascaanood meel ka sokaysa lama gali doono marka waxaan leeyahay taana waxaan idin leeyahay ha is dhiganina iyo wixii ugu qaalisanaabadna ku bixiseen oo ah kitaabka Ilaahay barashadiisa Ilaahay waxaad ka heli doontaan insha Allah waadna heli doontaan kuna si gacan adag leeyahay waxaan doonaynaa walaalayaal waa laga hadlay barashada iyo qiimaha ay leedahay kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala culimada iga horeysay kaash nabiguna kaleey salaatu wasalaam watuu inagu yiri khayrukum man ta'allama qur'aana wa 'allama waxa idinku khayr badan idinku wanaagsan idinku fadli badan adduunka qofka quraanka intuu barto dadka bara aakhirana kaasa ugu fadli badano inna akramakum 'inda Allahi atqaakum wayo waxa idinku fadli badan ka idinku cabsida badan cabsida xagee laga helayaa waxa laga helayaa maxay قرآنك يا كتابك كجرت سما إنما يخشى الله من عباده العلماء إلهي وحنا سيدا وجبك كوا علمك الوالي علمك أنا وح كوكا علمك وقال الله قال الرسول إلهي بيري يا النبي محمد بي عليه الصلاة والسلام وعندنا يا مركا هنا عنده سيدي علماء يا خيار تيجور السبايد عندهن ورر لا باس ونمعة هاي السطان نمعة يا كحمدية أنه وحمان تليدن كيمي وحفلتنا لو qabanaya oo anagu aan tale xoganimi ma aha inay kaalin ka galeen in hebel iyo in hebel aanu garanayno laakiin waxa qiimaha aanu u nimi oo amaanan oo aanu ku mahad celinayna waa quraanka Ilaahay magaalada qaaday maamuska waxa qiimaha inoo leeyahay kitaabka Ilaahay magaalooyin badan oo deegaankeena oo ka waaweyn baan waxa weeye anagu wax tale baan ka nimi xafladan lagu qaban waxaan la qiimaynayaa oo la qadarinayaa qiimaha waxa leeyahay kitaabka Ilaahay taas la raba marka in la adkaysto oo lagu xamdiyo oo wax weeye lagu shukriyo oo aynu noqono dad ehel quraana dad quraanka ehelkiisa waxaynu kala u mahad celinaa macalinka quraankan maamulaya horta meesha khayr baaba isku beegmayo jamciyada hawshan maamulaysa waxa la Al-Nuur baa lahaa nuurka soo ma taqaanin waa wax iftiimayo de khayr soo ma macalinka qudhisana nuur baa lahaa soo ma aragti macalinku waa nuur magaalada qudhaduna magac fiican bay leedahay Laabaas waa meel aan dibi ka jirin weeye meel khayr ka jiro weeye marka khayrar badan baas waa horta khayrarka Ilaahay inoo aqbalo waxaan leeyahay marka war aan ka faa'iideysano macalinkana ka faa'iideysta waxaad ogtihiin macalinka haddaan laga faa'iideysan deegaanadeena kulankan maanta la qabtay kulankii 12aad baa
waxaa hogaamin jiray in badan magaalada Godaalo macallin Cabdulle khayr badan ilaahay siiyo macallin midhiisa la arkay baa maanta Nuur ba macallin Nuur ba isagana booski taagan waxa la rabaa in lagu gacanaydo war laga faa'iideysto oo dadka waaweyn iyo waayeelka iyo dhalinyaradu ay wax ka bartaan jamciyada Nuur waxaan leenahay warda khayrkiina la aragay kordhiyo bahasho dhul kalena ku dara oo iyagana waxaan leenahay kordhiyo kor u qaada deegaano badan baa u baahan khayrka kan iyo waxaan in la gaarsiiyo fadligana war iyagana soo gaarsiiyaan leenahay ilaahay idin barakeeyo waalidka iyo odayaashana waxaan leeyahay war aan ka wada faa'iideysano khayrka iyo nimcada aad baan idin salaamaya una bogaadinaya magaalo quraan ilaahay ka dhigo fadliga iyo khayrka ay haysatan ilaahay u siyaadiyo waayeelkeeda iyo waxgaradkeeda Allah barakeeyo dhalinyarada xufaad quraanka ilaahay xiftisan ilaahay ka dhigo roobku baryahan kuma badnayna ilaahay roob badan ha keeno mid barwaaqada ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu siiyay oo diinta quraan roob Allah ugu daro xaq Allah dhamaantan inagu sugo waxaan u yeedhayaa insha Allah oday Nuur Faarax oo odayaasha deegaanka kamida insha Allah marka labaad waxaan salaamayaa dadka xafladatan quraanka kariimka loo dhigayo inta ka soo qayb gashay intii abaabushayba aad baan ugu faraxsanahay inuu salaamayna inta culimadu ka hadashay ayaanu la qabnaa xafladana waanu taageeraynaa ururka alnuurna waxaanu leenahay garabkiina waalidiinta iyo malcaabada waxbarashada waxaan leenahay aad iyo aad baa u sharfantihiin macallin quraanka waxaan leenahay garabkaaga Allah galo waa sharfantahay laakiin wuxuu yiri waa intaas ugala abba usmaanta saan u dagaalamay baarkiis wayba waa intaas ugala sii dhawaada waalidiinta waxaan leeyahay haday macallinka la shaqeyn oo ubadka ka shaqeyn oo ay macallinka la shaqeeyay waalidiinta sharafta maanta hoos bay u dhacaysaa laakiin kor u qaado sidii aad ula shaqeyn lahaydeen haadade oo ciyaalkina horumar ugu sameyn lahaydeen ilaahay baa horumar leh inta badan lagu soo tabcay oo cid kasta ku soo tabcaday xafladu way inoo soconaysaa macallin Nuur iyo ardaydiisa iyo reer Laabaasna waxaan leenahay khayr Allah idin siiyo mustawaha aad joogtaan hadeerna ilaahay kor ha idin ka sii qaado waxaan ku soo dhaweynayaa mar labaad ninka la yiraahdo oday Bulaale Diiriye oo kamid odayaasha soo dhawow Bulaale Diiriye الرحمن الرحيم سنة محمد هلو صليو مر لبعضنا هلو صليو انت كبعد انك حنوصنا يا احمد حسن برهي وحن ربنا وحي اسلام ودن انه يدعيان ان الهي كمان ملايين مريو انت مركان كغا غدبه كسو دواado xaflada maanta horta adduunka guul walba Soomaaliya maalinba awrba dhaamiya ninka loo jira Cabdi Bile waxa la Soomaaliya ama Afrika qaaday orodka ama adduunka oo dhanba hadda maanta waxa kamid ah ardayda Laabaas waxana mudnaanta iyo sharafta iyo diinta la barto waxa keenay saddex qodob mar waa nimanka jaaliyada marna waa macallinka marna waa ardayda marna waa waalidka saddexdaba afar way waalidka afar ku ah intaas oo dhan horta mudnaanta iyo sharafta iyo diinta dadaalkeeda inta qolba meel bay kaga jirtaa anigu waa mahadnaqayaa markaa waayo Laabaas
10 sano jirtay taleexo 100 jirtay bay ka qaaday xuduna in leeg bay jirtay bay ka qaaday waxa weeye aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ilaahay khayr ha siiyo qolada jaaliyadda macallinka ardayda waalidiinta reer laabaas oo dhan aakhiraya adduunba waxa qaalaya oo muhiiba oo diintii ilaahayda bay taarget gareeyeen guul bay ku keeneen aakhiraya adduunba waxa lagu tabco ka qaalisan diinta ilaahayna oday cabdirashiid jaamac geelle oo odayaasha ka mid ah kana mid ah odayaasha iyo mimbarka alnuur ka mid ah soo dhawow cabdirashiid bismillaah alxamdulilah salaatu lilah salaatu wasalaamu calaa rasuulillah sala allahu caleyh wasalam assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaan ilaahay baa mahad iska leh isugu keenkeenay xafladdan quruxda badan ee lagu maamuusayo xafladdan tartanka qur-aanka ah ee maanta lagu qabtay laabaas waxaan leeyahay ilaahay ha barakeeyo cid kasta oo ka soo shaqaysay iyo cid kasta oo hawl ku darsatay hadday tahay maxaa la yidhaahday ururka ama maxay ahayd khayriga guud ee qabanqaabinaya tartarkan in awrboogays lagu qabto ama sanad walba la qabto mar walba ka shaqeeya oo kharashka iyo wakhtiga geliya culimada ka shaqaysa howlwadeennada dhammaan iyo inta kharash ku bixisa waxaan leeyahay allah barakeeyo ilaahay khayrka ay ka shaqaynayaan hana ku horumariya akhriya adduunka miisaankooda xasanaadkana allah ugu daro waxaan kaloo u ducaynaynaa u hambalyaynaynaa dhammaan bulshada kala duwan oo khayriga oo reer alnuur khaasatan marka ugu horeysa kuwa ka shaqeeya oo kharashka ku bixiya wakhtiga ku bixiya in malcaamadaha alnuur ay heerkaas soo gaadhaan waxa weeyaan wakhti ku bixiyey oo hanti ku bixiyey waxaan le ilaahay idin barakeeyo ilaahay waxa aad ku bixiseen oo khayr ah oo adduuna oo wakhtiga ilaahay idin barakeeyo ilaahay waxa weeye wax ka khayr badan ha idinku bedelo maalkiinna iyo carruurtiinna iyo caafimaadkiinna dhammaan ilaahay idinku barakeeyo meel kasta iyo dhinac kasta ilaahay idinka barakeeyo ilaahay wax idinku bedelo aad iyo aad baad mahadsantiin baan leeyahay halkaa ka sii wada waxaan kaloo iyagana u mahadnaqaya u ducaynayaa dhammaan kasoo qalbayaasha guud ahaan gaar ahaan waxaan u hambalyaynayaa macallimiinta reer alnuur guud ahaantoodba allah idin barakeeyo waxaan kaloo u ducaynaynaa u hambalyaynaynaa reer laabaas culimmadooda macallimiintooda ardayda allah ha barakeeyo qur-aanka dhigata kuwa tartanka u guulaystay iyo kuwa kaloo ku soo daba jiro iyagoo laftooda aan u malay maanta inay forjaysan yihiin oo leeyihiin sanadka dambe yaan idinkana laydinka qaadin tartanka oo kaalimaha koowaad gala waxaan leeyahay allah idin barakeeyo ilaahay idin soo barbaariyo waxaan u ducaynaynaa oo kale gabdhaha hooyooyinka dhalinyaro waaweelba kala duwan waxaan kaloo u ducaynaynaa howlwadeennada sida laga sanqariyey dadku haddaanay isku xidhnayn oo midnimadooda aanay isku xidhnayn waxa la hadduu reerku guuro oo xilli adag guuro ka dhexe iyo ka dambe iyo ka hore haddaanay qaylada isla gaadhin wax badan baa kala luma sida laga soo sheekeeyey halka waxaad ku gaadheen midnimo waxaad ku gaadheen isku xidhnaan waxaad ku gaadheen iska warhayn waxaad ku gaadheen wada tashi waxaa leeyahay halkaa ka sii wada waad mahadsan tihiin allah idin barakeeyo dhammaan waxa weeye khayrka aad ka shaqaynaysaan idinka iyo xoolihiinna iyo carruurtiinna iyo naftiinna iyo magaaladiinna allah ku barakeeyo khayrka aad ka shaqaynaysaan cid kasta oo islaamana ilaahay ha gaadhsiiyo waxaan leeyahay macallinka kelmadii cajiibka waxaa ka mid ah kelmadii cismaan yiri oo ahaa magaalada waxay laabaas carabi waa dhibi ma jirto waxa weeyaan macallinku waa alnuur waa nuur de waa sheegay waxa weeyaan khayriga ama jaaliyaddu waa alnuur waa magacyo aad iyo aad u qurux badan oo khayr badan haddii la tafsiiray mid codsina waa la soo jeeday reer alnuurow waxa weeye maanta waxaad ka shaqayseen way muuqdeen insha allah wayna sii muuqan doonaan codsina waa la soo jeeday wax alnuur ha la sii ballaadhiyo oo xafladan mutaystay in halka lagu qabto oo ka shaqeeyey oo gogosha dhigay oo martida soo dhaweeyey oo soo camiray iyagana waa u mahad celinaynaa waxa weeye
haddaanu reer laabaas nahay horta ammaanta naka kala daayo ammaantana la ammaanayo yaanan isdhigane hanaga kala daayo yaa annaga macallinka haddii la hooyooyinka odayaasha haddii ammaan nalaku wado waa seexanaynaa yaa waxa mahad leh oo mutaystay النور محسنين تا النور با إيانا مهد ميل كستا بير كستا وحي لغو بيرو با لغا سو غوستا بير كستا وحي لغو بيرو با لغا سو غوستا مريحيدي يا واي هيان واي أركان إن يرمركان كدرو أو تاريخا تولد الله باس معلنكي ugu horeeyay ee arday u bilaabay ee aan cid ku taakulayn ee isagu maamulay ee aan filin ka qaadan anigu aha waa marxaanti rabaa inaan hal kelmad siiyo gudoomiyaha shirkadda Golis degmada Taleex cali diriye jaamac hadalku ugu dhamaaday baan u maleeyaa alnuur wax buu qabtay wixina waa muuqdaan wanaag fara badan baa ka muuqda dadweynaha ku dhaqan laabaasna wanaag bay qabteen waana muuqataa waxaan leeyahay dhammaantiin bakayr Allah idin siiyo dadka reer laabaas dhalinyarada iyo ardayda iyo dadkii golaha gobosha dhigay dhammaan waan salaamayaa waxaan salaamayaa oo kale dadka culimada ah ama qabaayilka odayaasha u soo masaafooday u soo maray wadooyinka dhaadheer u soo xadaafiirooday danahooda ku daadiyay ilaaha ka fadlisiiyo ilaahay isku dambi dhaafo waxaan salaamayaa gaar ahaan dadkan gobasha dhigay oo reer laabaas ilaahay tacabka ku soo tabcadeen iyo macallinkiinu iyo dadkaynu ku soo taniyaba allah u dambi dhaafo allah u dambi dhaafo waxaan u gudbayaa wax soo dhowey baa la ilaahaye ummadda reer awnuurey ama dalkan jooga ama dibadda jooga الله يقولي تلادينا لا يسوكيديو تعبكيني ما قساروبين أدت كوسو ديريسين ودلالة لهيدين ما قساروبين هل كالي كلا يا ما تلقاها الليانا وقوشو تالنا ومقارل الله باس لبحري إلهي إذا أسطروا انت ورسي لواذا ونريديسو دعينا خالينا وإذا كنا إلهنا ويديسو وذا برينا إلهي حسوك كان دم العفو وحان كلو وجود بيا جارهان مجالة حوجي أباره باكم مغطي وضل كذا وقدام كوا إلهي أبارتها كسر أنت هيك جيست أبارتها لك آمين لها إلهي وأبارتها كسر آمين لها رحمة يوم شيء ما تكرر الله كان آمين لها إلههم نجا أقبل والسلام بسم الله الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد marka hore walaalayaal waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka anigoo ku hadlaya magaca ka soo qaybgalayaasha magaalada Laabaas ee xafladan u taagnaa magaaladan in badan baa maxay tahay juhdi badan baa lagu soo bixiyay dad badan baa maxay tahay ka soo shaqeeyay ana u mahad celinaya An-Nuur waxaan leeyahay waad mahadsantihiin Allah subhanahu wa ta'ala dadaalkan badan aad bixiseen Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha idin qaado inta kadib tihiin waxa weeye Ilaah baa mahad leh mahad waxa loo celinayaa wadaadada waxa loo celinayaa ardayda waxa loo celinayaa